soo dhawaada daabadayaal waxaan la wadaagi doonaa xogahay macluumaad ku dambeeyay giiga Soomaalida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta burburi waxay ka bilaaday deegaanka Oodweyne ee degmada Daniile iyadoo oo dadka shacabka halkaas ay gabi ahaan badiideen dad ayaa ku geeriyooday rasaas ay dadka la dhaceen kuwa kalena waa ku dhaawacmeen haddaba dhulka Oodweyne dawladda miyaa iska leh mise ganacsatada iyo dawladda ayaa doonayay inay xoog ku qaataan waxay la wadaagi doonaa xogo iyo macluumaad ku saabsan dhulboobka Muqdisho ka socda oo aad faraha uga batay sidoo kalena gudoomiyaha gobolka Banaadir Muungaab oo gabi ahaan bixilka laga qaadayo waxaana soo baxaya inuu yahay murashax madaxweyne waxa uuna markan doonayaa 2020 inuu Xasan Sheekh Maxamuud la tartamo haddaba khilaafka Muungaab iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo wiilka uu Muungaab dhalay oo gabi ahaan iska casilay xilka gabi ahaan buu ka hayay xisbiga cadaaladda iyo wadajirka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud way la wadaagi doonaa soo dhawaada muuqaalkan saaxiibada la wadaag lagu soo biir si aad mar walba hesheed xogaha maalinle TV aynu soo gelino waa hagaag aan ku bilaawno haddaba shaakay waxa lagu soo waabiristay dadka reer Oodweyne halkaas oo subaxnimadiiba ay arkeen iyaga oo ay dul taagan yihiin cagafta oo doonaya inay guryahooda burburiso iyadoo ay la socdaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya dadka reer Oodweyne waxay kaga duwanaayeen deegaanada kale ee imika dhulboobka ka socday ma jirin maleeshiyaad iyo kale oo qoryo ay diyaarsadeen balse iyagoo aan wax qol wadan ay si geesinimo leh waxay ka hortageen ciidamadii dawladda iyagoo oo is hordhigay sheegayna inay dhagaha suuf gasanayaan oo xabadu aysan ka carareynin ciidamada oo la yaabay ayaa dhowr qofood halkaas ku dilay kuwa kalena ku dhaawacmay wili dadku way hortaagan yihiin haddii dad la dilay wili waa ay bixilayeen sida aynu xogaha ku helayno dadka ayaa ku cabanaya in ay dhulkan ka gateen goofleyda oo imika ay u haystaan sharciyad balse uusan ahayn dhul dawladeed taas waxay u muuqataa inay ganacsatada iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya markii ay ka soo dhamaatay dhulalkii dawladda oo marmarsiyo u ahayd inay dawladdu dib u soo ceshanayso in haddii marmarsiyii soo dhamaaday imika ayba toos u soo aadayso degmooyinka iyo sidoo kale dhulalka kale xaafadaha magaalada iyadoo oo markan marmarsiyo kaga dhiganayso in xaafadahaas isku raran yihiin oo dib u habeen lagu sameeyo calaabosna waxaa lagu dhufanayaa $35,000 Mareykanka ilaa iyo 45,000 taas oo ka dhigan inay dawladdu qorsheedu tahay in ay lacag ka sameyso isla dadka degan ayaa la leeyahay dhulkiina ku gata lacagtaas ama qof kale ayaa gadanaya haddii aad lacagtaas ee gabi ahaan iskaga guur iyadoo aan loo heen goob iyo meel kale ay degaan tan waxaa muuqata barakici dhulalka ee Soomaaliya haddii dadku ay 91dii dawladdii siyaad bar ay ka barakaceen iyo 2006dii maxkamadihii Itoobiya markan waa barakici dhulalka ee boobka lagu hayay dadka shacabka dhulkii jaamacadaha iyo dhulal kale ayaa sidaas loo qaatay waa laga soo tallaabay markan oo dhulkii dadku shacabku lahaayeen iyo goofafkoodii ayaa loo soo dhiganaya ilaa imika way hortaagan yihiin waxaana ay dawladdu doonaysaa inay xoog ku dudumiso qaar kamid ah gobaha ay sidaas u sii burburinaysaa walow ay jiraan in ay markan dhaqdhaqaaqi iyo sidoo kale in ay socdaan dadaalo kale ayaa ilaa imika amri dhalin wilina ciidamada dawladdu ay ku sii madaxadeegayaan oo ma jirto taliska booliiska oo ka hadla arrintan oo dilka iyo boobka lagu hayo dadka shacabka balse waxa muuqata ilaa imika sida muuqaalada aad arkaysaan boobka oo aad u fara badan reer Oodweyne imika uu ku yimid sida muuqatana waa la burburi doonaa haddii galabka ilaa ibribo gaarto oo waxa muuqata inay ka go'an tahay oo dadkan oo aan waqti loo qaban goob ay u guuraan aan la garanaynin ayaa cagaf ah xitaa agabyadooda iyo sidoo kale alaabtooda ayaa lagu duduminayaa waa qaab u muuqata in aysan naxariis jirin xitaa haddii dhulku ay qaadanayaan in aan la siinaynin muddo ay ku guuraan oo qiiman haddaba waan arki doonaa boobkan Oodweyne ka socda iyo waxa ka soo kordhay iyadoo xaaladdu imika ay meeshii ugu xumeed ay marayso haddaba haddii aan intaa kaga tallaabno dhulboobkan aadka ugu fara badan magaalada Muqdisho
oo wili sii socda shacabkuna ay ilaa imika aysan baraarug weyn ka qabin oo ay u muuqataba in maalinba kis dhinac looga qaadanayo oo dadyo kale ay wili ku andacoonayaan in dhulalkii dowladda la qaadanayo balse aysan ogeyn xogta ku jirta xitaa dhul walba magaaladan in qaab casriyeen ah ama waxa loo yaqaano dib u habeen caasimadda qorshe ah in la wado oo dadkana lacag looga sameeyo oo qof walba maanta haddii aysan haysan ay ku imaan doonto oo biri gurigaaga iyo dhulkaaga ayaa loo soo socdaa haddii aadan maantadan aad aaminsan tahay in dhul dowladdu leedahay aad qaadanayso balse wixii muuqda ayaa soo bixi doona haddii aan intaa kaga tallaabnana markan madaxweyne xasan sheekh maxamuud caasimadda magaalada muqdisho maayarkeedu waa uu ku jahwareersan yahay oo isbedel muddo kooban ayaaba u muuqda in isbedelaad maayare ay jirayaan oo muddo sanad ka yarba ayaa kii saddexaadba la filayaa in uu maayarka muqdisho uu dib ugu soo laabto madaale oo hore gudoomiye u ahaa ayaa marka la filayaa inuu dib ugu soo laabto taasoo ka dhigan in khilaaf iyo sidoo kale jahwareer jiro sidoo kalena beesha mataa cabdulle iyo cili cumar ayuuna khilaafkan ka dhaxeeyaa sida xogahu ay tilmaamayaan taas oo ka dhigan in gebi ahaanba marka la isku fahmi waaye arrimaha dhulka ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku doonayso markaasi deegaanada hoos yimaada warshiq halkaas oo dowladda federaalka Soomaaliya ay qorsheynayso in ay markaa dhulkaas qaadato haddaba wiilkii uu dhalay gudoomiye Mugaab ayaa gebi ahaanba iska casilay xilka ama markaasi xubinimadu ka hayay xisbiga cadaaladda iyo wadajirta taas oo ka dhigan in markan uu banaanka u soo baxay khilaafka xasan sheekh maxamuud iyo Mugaab xasan ayaa doonaya markan inuu gudoomiyaha ka dhigo madaale oo hore xilkan u soo maamulay waana markii saddexaad ee madaale dib loogu celin doono dhowr mar ayay ka cawdeen dhalinyarada iyo sidoo kale dadka ku dhex jira xisbiga cadaaladda iyo wadajirka gaar ahaan xogayaha xisbiga cabdiraxmaan odowaa oo iskhilaafeen kadib markii dhalinyaradii ku badneed ee xisbigaas ee degmooyinka iyo agaasimayaasha ahaa dhammaantood oo xilka ka qaaday Mugaab taasna waxay soo dedejisay inay xisbiga ka caroodaan Mugaab in uusan xisbiga matalin yahay siyaasi u muuqdo in uu la dagaalamayo markaasi xisbigii madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhistay ee imika uu marashaxba u yahay haddaba hadiiba Mugaab sidaas xilka looga qaadayo waxa muuqatay in madaala dib loo soo celinayo wararka ayaa tilmaamaya in isla Mugaab ay uu yahay murashax madaxweyne Mugaab ayaana ka tirsan xisbiga himilo qaran sida ay xogo tilmaamayaan wuxuuna markan doonayaa inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya 2026 taas oo ka dhigan markaasi in ay soo baxdaba wararkii sheegayay in Mugaab uu noqon doono murashax madaxweyne sida ay ka muuqataba qaabka iyo bandhigyada uu sameeyay inta kooban xilku u hayay ayaana muuqatay imika inuu markaa u diyaarsan yahay inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya isku soo wada duubo Mugaab sidaas oo kale amiin ayaa muddo kooban xilalkooda ku weynayo taas oo ka dhigan in madaale oo xisbiga imika ka tirsan ahna murashaxa duqa muqdisho ee xisbigaas ayaa mar kale loo caleemo saaray inuu noqdo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaana la filayaa inuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhawaan ku dhawaaqo doono waan arki doonaa waxa ka soo baxa hadii uu Mugaab isdifaaci doono ama inuu gebi ahaanba isaga oo aan wax badan ku qaban gobolka Banaadir muddo kooban joogana uu xilka ku waayo taas oo muuqata in la doonayo in lagu sumcadiyo isaguna uu xilkan sumcadiisa dib ugu soo celinayo muddo 10 sano uu saaxadda siyaasadda ka maqan guud ahaan intaas ayaan jecelnahay nabad iyo warsa